ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى nin kastaa ha duudsiya ama dalasi ha u xado ama duurka ha u xulo ama dabina ha u dhigo ama duhur ha weeraro ama haba dilaale ee dumi maysa weligeed أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى maantana ereygii un baan leenahay annagu qolada culamaa suuga oo u safan iyo inta raacsan oo culimada u yihiinba إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarkaana idinma aanan doorin adinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyay shan halo idin daran danigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydu qabateen dadka aydu raacdeen asna waa idin degagubi dilaalkii la siiyana dunna kama helaysaan diinnimaan lahayna damayr caynsan weeye ninkii idiin darnaadana ajir iyo duco heli dibna deeqa eebbahay dibna saari maysaan war maxaad dufalayahow cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen adinkaa dalkaba leh dawlad ma u noqotaan ilaan doqone calaf male dulbaax maxaa ka baylahay إلهي فارج الهم ويا من تسمع الشكوى فهذا الليل أضناني بطول ما له جدوى أنا ما زلت ملتعا وقلبي بالأسى يقوى فأيام المنى تجري nin aqdaamo faranji leh maanta yaa abuuriin ama aaladaba u sido ama arigaba u qalo ama awrtaba u raro ama laba ugaarsada ama uba ilaala ah ama uurka kala jiro ashahaado beenaya islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama oran anna ma ogolaan karo nuxnuuxdiya naxliga beenaya naqalka shaydaanka nabiibshaha warkuu sheegahayuu nacas rumaystaaye nuuda hadalka naasica dibnaha nuuska dhagaheenna anna nadartu waxaan soo arkaan nacam idhaahdaaye dhulkoo nabada weer la isku naco naadi ma aqaane hadal uu shisheeyuhu ka naxo naqay dharaartaasi adeer ummadda soomaaliyeed magaca guud markaan ka eegnaa laba qolaan u kala saaraynaa qolada hore waa qolada maaragtay raacday dadkaas gaalada ah oo mooday in meeshaas khayr ka jiro oo ku kadsoontay dhaldhalaalka iyo idaacadaha iyo midiyowyada gaalada ay faafinayaan ku kadsoontay weeye qoladaasi waxaan leenahay runtii ma aha saas arrinta waad ku khaldanteen meeshaasna idinkama jirto nin kastaa ha duudsiya ama dalasi ha u xado ama duurka ha u xulo ama dabina ha u dhigo ama duhur ha weeraro ama haba dilaale ee dumi maysa weligeed ummaddaan in damina loo dhiga hadda uguma horraynin waxa weeyaan qarniyaal badan baa la soo maray markii taariikhda dib loo akhriyo oo waxaad garanaysaa dagaaladii nimankii mujaahidiinta ay mareen kii sayidka maaragta dagaalkiisii dabada dheera raxmatullaahi calayhi axmed guray ma garanaysaa sheekh xasan barsame waxaad garanaysaan kii s y l waxaad garanaysaan dowladihii la soo maray intii dabin oo maaragta loo dhigay raggaasoo dhan waxayna tusaysaa dagaalka ummadaana inuusan horta hadda bilaabanin iyo dabin u dhigidooda iyo in la lugooyo hadda ma bilaabanin rag un baana intaa dhimbisha dabka siday oo shooladu ay ka dami laayde waa hore ayagoo qorshahooda wuxuu ahaa inay maaragta ummadan inta qaybiyaan gacanta cadawga dib ugu celiyaan taariikhdeedana ay maaragta madoobeeyaan oo damiyaan laakiin taas markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diiday kadib wuxuu asbaab iyo maaragta sunan oga dhigay rag u taagan oo barnaamijka asaga ah maaragta difaacay sayidkuna waa kii maaragta lahaa
doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarkaana idinma aanan doorin adinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyay shan halo idin daran danigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydu qabateen dadka aydu raacdeen asna waa idin degagubi dilaalkii la siiyana dunna kama helaysaan diinnimaan lahayna damayr caynsan weeye ninkii idiin darnaadana ajir iyo duco heli dibna deeqa eebbahay dibna saari maysaan war maxaad dufalayahow cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen adinkaa dalkaba lehe dowlad maa u noqotaan ilaan doqone calaf male dulbaax maxaa ka baylahay gabaygaasi waxaan u malaynayaa sheekh maxamed cabdilla xasan wuxuu kula hadlayay nimanka culamaa suuga ah oo cadowga la safsan maantana ereygii unbaan leenahay annagu qolada culamaa suuga ah u safan iyo inta raacsan oo culimmada u yihiinba dabcan meel qolo walba qolo unbaa culimo u ahoo hor socoto qoladaasana ilaahay qiyaamo la keeni doonaa sidaan anigu kolley ka rumaysanahay marka dadkaasi marka waa dad caynkaas ahoo dad iska maaragta taariikhdoodii duntay oo ay baaba'day weeye mana laga yaaba inay insha allahu tacaala guusha helaan dhabaha ay ku socdaanna waa dhaba hoog iyo halaaga cid ku raacdana waa cidda ku khasaari doonta weeye haddaanan ilaahay subxaana wa tacaala intay goor tahay toobadda usan waafajinin oysan toobad keenin qoladaas halkaasaan ayaga xaalkooda dhigahayaa dalkuna waa jiri doonaayo dadku way sii socon doonaan oo waxay Soomaalidu ku mahmaadaa biyo guray la noqon maaye shooladaana way iska shidnaan doontaa xataa inta joogta haday baabaado shooladu way sii socon doontaa ayaguna taariikhda way ka bixi doonaan qoladaas intaasaan leeyahay qolada kale waa inta jihaadka ma aragtay oo istaagtay oo ilaahay kitaabkiisa kor u qaado dhulka u diiday iyo inay kirishtaanku kula kaadiyaan masaajida qolada u diiday iyo inta ku ajiday oo raacday oo ma aragtay garbahooda noqotay oo ma aragtay buuxisay saquurta iyo sufuufta iyo magaalooyinka muslimiintu ay joogaan camirtay qoladaas weeyaan leeyahay qoladaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan oga daninayaa oo u malaynayaa inay yihiin qoladii nabi maxamed uu sheegay sallallahu alayhi wasallam ستختلف أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة رسولك إلهي وحير أمضي إذا وحيق بسميسا صدن تضباطا يسدح فرقة هل فرقة موية انت كلا النار بيقليسا فرقة داسي واتما يا رسول الله منهم فرقة يا رسول الله وقال ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وحونا كجوابي وما أنا عليه وأصحابي أريق إيا أصحابتي إذا وحان كسوغان هايدتك كسوغان وي معي كسوغان النبي محمد يرنقيسي أول وحيا هاي كوا قارضا كوا عدك waxay ahaayeen kuwa muslimiinta maaragtay ay u dhagan nugul waxay ahaayeen kuwa muslimiinta u garab raariciyo waxay ahaayeen kuwa muslimiinta agtooda ay ku wan yihiin oo qiimeey lagu qiimeeyo waxay ahaayeen kuwa aan muslimiinta in la dulmaanan u ogolaanin oo agtooda lagu dulmin waxay ahaayeen kuwa muslimiinta u rifqi badan oo waxay haystaan muslimiinta wax ka siiyo waxay ahaayeen kuwa gaalada ku dardaran bay ahaayeen ashidaa ala al-kuffar ruhamaa baynahum yani ilaahi subhanahu wa ta'ala baa noo cadeynaya 10 kan asagaana barahay